السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada waa walaashiin Uma Mansuur. Maanta waxaan idiin hayaa qiso maaragtay aad markaad maqashid aad argagixaysid. Qisadan sax iyo qalad waxay tahay, jawaabtu waa dhankaada. Soo dhawaada. Sidaan idiin sheegay qisadan maanta waxay ku socotaa gabar la dhaho Suhayla iyo gabar la dhaho Qaziil ayaa la dhahaa iyo wiil Maxamed la dhaho. Qisadan waxay ka dhacday wadanka la dhaho Tunis oo carabtu ay Tunis u taqaano. Soomaalidan waxaan u malaynaa Maqrib inay u taqaano, ma hubo. Anyway, qisadan wadankaas ayay ka dhacday. Labadan gabdhood waxay ahaayeen laba gabdhood oo ilmo habreed ah. Maadaama laba gabdhood oo ilmo habreed ay ahaayeen, gabadha la dhaho Suhayla ayaa waxay go'aansatay markay dugsiga sare dhameysay in ay maaragtay waxbarashada ma aysan jeclayn. Kadibna nin ayaa guursaday, wiil Maxamed la dhaho, oo maaragtay wiilashan iska ladan oo taajiriinta ahoo maaragtay dukaamo iyo meelo alaabta maaragtay baabuurta lagu sameeyo waxaas iska lahaay. Qaziilna waxay samaysay, waxay sii wadatay waxbarashadeedii. Waxay ahaayeen laba gabdhood oo ilmo habreed ah haddana saaxiibo ah. Mar walba Qaziil way u imaan jirtay guriga Suhaylo, waqti la qaadan jirtay. Ninka oo Suhaylo qabo Maxamedna wax dhib uma soo arki jirin, wuxuu dhihi jiray gabadhan waa gabar walaashay. Suhayla iyo Qaziil waxay ahaayeen gabdho aad iyo aad u qurux badan, qaasatan gabadha Qaziil la dhahayo. gabar waxay ahayd maaragtay aad u qurux badan oo indho buluug ah ayay leedahay, aad iyo aad u qurux badan. Labada gabdhoodba gabdho aad u qurux badan ayay ahaayeen. Sidii ayay maaragtay ku ahaayeen dad maaragtay walaalo ah oo maaragtay sidii mar walba iskugu imaado maaragtay dee gabdho walaalo ah. Walaalana way bayiin asaa waa dad ilmo habreeda. Anyway, Suhaylo laba gabdhood ayay dhashay, kadibna meel ayay maaragtay shirkad ayay waxay ka bilowday shaqo. Subaxii marka waxay samaysaa Suhaylo iyo xaajigeeda Maxamed iyo labadeeda gabdhood way israacaan. Gabdhaha waxay u geysataa hooyadeed oo u hayso, ayadana sidii shaqada ku sii aadaa, Maxamedna sidii wuxuu ku sii aadaa shaqadiisa. Anyway, nolosha ayagoo sidaas ugu noloshaas quruxda badan ku nool. Galabtii markay waqtiga shaqada ka soo baxda markii la gaaro wuu soo maraa, gabdhaheeda ay soo wadataa, kadibna gurigooda ay sidaas ku imaadaan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday gabar deriskeeda ah Suhaylo ayaa u wacday. Waa ogtiin waxaa la yidhi deriskaada waa ilaalaan lagu dirsanay, Soomaali hore u tiri. gabar deriskeeda u wacday waxay tiri waan ogahay Qaziil in ay walaasha tahay oo abtiga ama habrirteed ama abtigeed ama habrirteed labada mid ah dhalay uun ay dhankaasi walaalo ka yihiin. Marka waxay tiri aniga ma raba inaan dhexdiina aan fidno ka sameeyo, aniga ma raba inaan isku kiindiro, aniga ma raba maaragtay in aan wax xumaana kaaga sheego walaasha, laakiin waxaan rabaa ayay tiri in aan kuu sheego wixii aniga aan arkay. Laakiin waxay tiri waxaan rabaa inaan kuu sheego wixii aniga aan arkay. Marka waxay tiri waad ogtahay ay tiri guriga subaxii waad ka baxdaa, adiga iyo xaajigaada waa israacdiin. Markii wax yar kadib saacado kadib waxaa soo noqda xaajigaada. Mar allaale markuu soo noqdo oo guriga uu soo galo, wax yar kadib waxaa gurigeena imaaday tiri walaasha Qaziil ayaa guriga imaato. Maxamed iyo Qaziil maalintii oo dhan guriga ayay isla joogaan. Waqtiga markii la gaaro uu adigu ku soo dooni lahaa shaqada ka soo bixi lahayd ayuu maaragtay ka baxaan. Ayadana kadib way baxdaa, asagana sidaas uu idinku soo doonaa. Saacad kadibna adinka ayaa guriga ku soo noqotiin. Gabadhi waxay tiri deriskeeda ku tiri maxay ahayd qowla ma hubtaa warkaas, ma hubtaa ayay tiri. Haayay tiri waan hubaa. Midda kale waxay tiri aniga wax fidnaa ma wado. Midda kale waxay tiri adduunyada horta waxay tiri aniga waxa aan hadda kuu sheegaa waa waxaan arkay iyo shakina yaqiin ayaa ka roon. Soo ma fiicno berita inaadan shaqo aadin oo aad Maxamed ku dhahdid markuu shaqada ku geeyo, kadib aad soo noqotid oo gurigayga aad gashid, kadibna aad indhahaada wax ku aragtid. Sidii ayay qowlo samaysay. Subax markuu shaqada Maxamed geeyay, mar allaal markuu dhigay shaqada ay gashay, taxi ayay dib u soo qaadatay, guriga gabadha deriskeeda ayay gashay. Sidii saacada kadib Maxamed ayaa imaaday, guriga ayuu galay. Kadibna wax yar kadib Qaziil ayaa imaatay oo gurigii ayay la gashay.
say meeshii ugu wada jireen sidii ay gabadha u sheegto waqtiguu dooni jiro markii la gaaray soo wada baxeen ayadana wadadeeday martay asna wadadeedu maray sidii ay marka uu kusoo doonay waxay tiri haye shaqadii ka war wuxuu yiri maanta shaqo badanaa jirto maanta go'aamo badan iyo shirkado badanaa maanta heshiis la galnay oo intee ka dhacday adi meeshaas wuxuu ku inkiray marnaba inuu guriga imaaday ama gurigan tegay iyo waxaasoo dhan uma uusa sheegin anyway gabadhii meeshaas wuxuu ku ogaatay shakigeedii inuu run yahay oo wixii ay gabadha dariskeeda u sheegtay uusan been ahayn sidii markii ay arrinteedii ku ogaatay maalintii dhan wuu ka yaabay markay guriga ku noqotay ayada dhan waxay ahayd qof maaragtay welwelsan qof isku dhex yaacsan wuxuu dhahay maanta maxaa kugu dhacay maxaa kaa qaldan maxaa sameynaa maxaa ku hay mayay tiri waxba ima haayaan waxna iguma dhicin waa nabad qabaa waa caafimaad qabaa wax dhibana ma jiraan okay haye waayuu yiri sidaas hadday tahay wax dhiba ma jiraan okay waayay dhahday sidii markiisay u joogtay maalmo markay arrintii fikirtay waxay go'aansatay maalintii kaleeto inuu ku tiraado aniga maanta maxamed uu shaqo ma aadi karo waa jiranahay okay wuxuu yiri qaziil u waco ha ku imaato waxay tiri okay qasab waa u wacana way ii imaaneen sidii markay gabadhii abtigeed dhalay ay wacatay ilma habreedka ama ahaayeen ama ilma abtiga ahaayeen ma xasuusto marka way walaasheeda sidii ku wacday oo aanba iska dhahna abtigeed dhalay in abtigeed ahayd sidii markay ku wacatay ayay maaragtay u imaatay mar alaal markay u imaatay waxay u imaatay qowlo oo jikada ku jirto markaas waxay ku tiri hey aniga jikada ayaa ku jirta ay soo ma jirin jikada ka soo bax markaas waxay tiri haye waaye kaal adiga soo galo alaabtaan ii dhaq okay tiri alaabtaan ku dhaqaha okay haye waaye dhahday mar alaal markii qaziil jikadii sas u gashay waxay samaysay qowlo inta xoogeeda inta ka qabatay hal mar maaragtay dhulka maaragtay madaxa ugu dhufatay waxaa lagu leeyahay dhufashadii ay madaxa dhulka ugu dhufatay ishee iyo labadeeda indhood il kamid ah faniintay xoogga kaliya ee dhulka ugu dhufatay naagaday maseersanta waxaa looma geli karo markii ay sidaas samaysay gabadhii maskiiba isla markiiba ishii ka haday dhiig madaxii uga furmay sankii afkii meelba dhiig kasii daysay midii ay soo qaadatay ayadii dhan way jeexday kadibna beerkii kasoo bixisay beerkii markay kasoo bixisay beerkii ay jarjartay beerkii ay karisay beerkii markay karisay gabadhii way qaaday qololkan maaragtay oo guryaha ku yaalo dharka qolka dharka maqaasiinka la dhaho ay qabatay gabadhi qolkii gelisay gabadhii markay qolkii gelisay sidii ay maaragtay howsheedii iska wadatay adduunkeedii iska nadiifisatay maxamed mar alaal markuu shaqada ka yimid wuxuu dhaha maanta maxaa guriga waa hagaajiso wax badanaa soo carfaayo oo maanta ma beer baad karisa haa maanta beer baan kariyo maanta cunto waxaan kuu kariyey waxay tiri gacmahaadaa cunaysaa ayay tiri ma fahamtay anyway wuxuu yiri okay waaye gacmaha iska soo dhaqaayo marka waxay tiri ord soo qaado rootigaada iyo biyo soo qaado cuntada miiskay ku saarantay mar alaal markuu jikada saas u furo ayuu wax ku istaagay haddooba fiiriye wuxuuba arkaba il waadahe il caadi ah oo farinjeerkoodsa isku jirto ishii uu soo qabtay talaajada hoosteeda ku jirto ishii uu soo qabtay ishii mar alaal markuu arkay wuxuu qaatay warqadahan maaragtay afka lagu tirtirto istiraasho camal ah wuu ku duuba jaabka uu gashtay albaabka uu ku cararay mar alaal markuu cararay suu usii cararayo wuxuu u tegay booliskii ugu horreeyay wuxuu dhahay ishaanaan gurigeyga ka dhexelay xaaskeyga waxay samaysay ma aqaano adi meeshii booliskii soo raaceen gurigiyaa la imaaday gurigi markii la imaaday ayadii meeshaanay iska fadhisaa waxaa la yidhi maxaa samaysay wuxuu tiri gabadhi abtigay dhalo waa dilay haddana waa kaasaa ay tiri waxay idinkugu jirtaa qolkaasay ku jirtaa meeshay dilatay gabadhii oo dee xaaladeeda xaal tahay oo dee laga bili-aadan uusan indhaha u dhammaystiri karin ayaa lasoo bixiyey isla markii waa la qabtay ayadii waa la xiray markii la xiray mar alaal markii maxkamadda la saaray arrintii waa la ogaaday maxamed waxaa loo xukumay inuu labadiisa gabdhood haysto hooyadii waxaa lagu xukumaa xabsi daa'ina soo maahan wadamada carabta wadamo waxaa jira dilka toogashada laga joojiyo oo qofka hadduu dembi galo xabsi daa'ima le lagu xukumaa marka xabsi daa'ima lagu xukumay ninkii maaragtay garsoorihii ama qaadigii maxkamadda xukumaya waxay waaye tiri 2 mar inaa igu xukuntid xabsi daa'ina marateen an tuxkumu fiya mu'abbad 2 mar waa inaa igu xukuntid ee tiri xabsi daa'ima wuxuu yiri 2 mar waa xabsi daa'ina kugu xukuma hal qof ayaa dishay maada 2 qof dilay ee asagana inaan dilaan rabay tiri anyway sidii lagu xiray xabsigiyaa la geeyay mar alaale markay xabsigii tagtay
waxay samaysay inay dadkii la dagaasho, inay keligeed isla hadasho, inay dadka qanqaniinto, inay ayada isqanqaniinto, waxay iska dhigto qof waalan. mar alaala xabsiga markay u fiirsay waxay dhaheen tan way waalataa u maleynaynaa, waxaa la geynayaa dhakhtarka qaybta maskaxda. waa la soo waday, waxaa la keenay dhakhtarkii qaybta maskaxda la keenay. mar alaala markii dhakhtarkii qaybta maskaxda la keenay, meeshiis markay cabaar ku jirtay, ayada marka ma ay waalnay arrinay kala dan leedahay. marka way soo baxday maalin maalmaha kamid ahaan ku dhahay gabdhihii ilaalinaya kamid oo neerska ama mumaridada ahayd ee qabsatay. markay qabsatay gabadhii way dishay. waxaa la yiri ku dishay yaa la yiri wax maaragtay qoray camal amiyaa la leeyahay, ama wax ay meel ka jabsatay wixii adigu ku dishay way ceejisay oo ku mudmuday oo adiga gabadhii way dhimatay. gabadhii markay dhimatay way soo carartay. markay soo carartay waxaa la yiri way soo baxday magaaladii hore u soo martay la yiri dukaan bahal midi intaas ay ka soo gadatay say u soo socotay gurigeedii ay timid. mar allaal waxaa la yiri albaabka markay soo garaacday maxamed albaabka babka siiyay. mar allaal markuu arkay waxaa la leeyahay naxtin darteed uu dhaqaaqi waayay. halkaas intay midida ka gelisay sidaas ugu kala jeexday, asagana way kala bartay. dariskii isla markii oo dhan boolisaa la wacaysay, waxaan ku dhan mididii jaq ugu siinaysa, asaga dhan laba caday ka dhigtay. kadib booliskii aa imaaday, waa la waday maxkamad labaadaa la saaray. waxay tiri haddeertaan aan ogola inaa i xukuntid, haddeertaanay tiri aan ogola inaa i xukuntid. shalay haddaan waalnaayay tiri maanta waa fiyoobahay. maanta waxaan rabaayay tiri anigoo adoo og inaan qof fiyoow ahay oo maskaxdeeda qabto oo miirkeeda iimaankeeda jooga aan ahay i xukun. waxay tiri xaqaygina waan soo dhacsaday, sababta aan qasiil kaliya dilo ma ahaynay tiri, labadoodaba way iqiyaaneen, labadoodaba inaan wada dilo oo ay hadafkeyga labadoodaba aan ka aarsado. kalsoonidii iyo maaragtay sidii aan uga dhigtay dadkii dad iigu dhowaa dhabarkii iga toogteen. hadda waxay tiri waa hurdi karaa, hadda xabsiyaa sheegtay adduunka meeshaa rabtiin godna igeliya. laakiin waxay tiri halka wax oo aan ka xumahay, ama halka wax oo aan ka shalaysanahay waxaa waaye gabadhii oo maaragtay neerska ahayd oo maskiinta ahayd oo aan dilay. gabadhaasna waxay leedahay danta ayaa igu qasabtay inaan dilayo aan dilo, haddaanan ayada dili lahayn ma aanan samaysan lahayn hadafkeygiio maxamed gacanteeda ma uusan soo galeen. si aan aysan ii hor istaagin oo aan guusheyda u gaara ayaan u dilay. hashaas gabar ayaan ka shalaysanaya tiri oo maskiinta ah xaqdarrada aan ku dilay, laakiin gabadhaan hore u dilay iyo ninkaanba waajibkoodii ayaan mariyay, xaqaygana gacanteyda ayaan kusoo dhacsaday. qisadan waa qiso aad iyo aad u xanuun badan. qowlo ilmaheedii waxay noqdeen hooyo la-aan iyo aabba la-aan. asaa hooyadoodna 2 maraa waxaa lagu xukumay xabsi daa'ima oo mu'abad ah, aabahoodna sida ayuu ku dhintay. qisadan marka waa qiso maaragtay aad iyo aad maaragtay u xanuun badan. adiga i daawanayo yaa qaladka kula leh, ma maxamed iyo qasiil ayaa qaldanaay mase qowlo ayaa qaldaneed oo maaragtay qaladka iska leedoo markii horeetaba gurigeeda maaragtay soo gashatay qof dumar ah. midda kaleeto ma waxay ku saxneed inay disho, mase waxaa fiicneed inay intay iska tagto furinkeeda iska dalbato caradeeda iska gasho, labadoodana isku dhaafto. ra'yigu waa ra'yigaada. aniga ahaanteeda waxaan qabaa uma mansuur ahaan marnaba inaan dhiig muslim la geli, ilaahayna dhiig muslimnimo geliyo. ninkan hadduu ku qiyaanay, hadduu naag kaa raacay ninaa ka badan, adna haddaa xumaysid naagaa kaa badan. in la isdilay, in la is ajaafeystay, in la isxagxagto waa laga fiican yahay. waxaa fiican qof walbaba inuu horshal ayadoo 20 jir la isku imaantana ayadoo 20 jir in la kala tago. videoga xigay intaa ku kulmi doono waa uma mansuur oo ku dhahaysa like, subscribe, comment. inta waa xaggaada dhammaan dadka maaragtay support gareeyo, hadday TikTok noqoto, hadday Snapchat noqoto, hadday Twitter noqoto, hadday maaragtay noqoto Telegram, dhammaantiin YouTube, Facebook waa mahadsantihiin. gacmo furan kusoo dhawaada, qalbi furan kusoo dhawaada. waa walaashii uma mansuur oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.